garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa ka duushay diyaarad siday dhaawaca gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso iyo xubno kale oo ku dhaawacmay qaraxii xarunta gobolka banaadir diyaaradda oo ah mid militari ah ayaa waxaa Soomaaliya u soo dirtay dowladda Qatar waxaana xubnaha kale ee dhaawaca ah ay qaaday ka mid ahaa gudoomiyaha degmada warta nabadda Seenab Xaabsi iyo xubno kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya sida xildhibaano senatoro wasiiro qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ehelada dhaawacyada ayaa ka sii suguutiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho bukaanada iyagoona caafimaad u rajeeyay sidoo kale waxaa diyaaradda ku diyaarsanaa dhaqaatiir la tacaali doona dhaawacyada muddada safarka ay ku jirto diyaaradda dadaalo caafimaadna sameeyeen muddadii diyaaradda lagu daabuliyay dhaawacyada injineer Cabdi Canshuur Xasan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddigii loo magacaabay gurmadka iyo wax ka qabashada saameynta qaraxii dowladda hoose xamar ka dhacay ayaa saxaafadda ugu waramay garoonka diyaaradaha gudihiisa waxaa maanta noo suurta gashay in aan dhaawacii u dirno caafimaadka dibadda shacbigii ku dhaawacmay iyo mas'uuliyiintii ku dhaawacmay intaba waxaa noo suurta gashay maanta inaynu u dirno dalka dibaddiisa si loogu soo daaweeyo taasoo ah tan xukuumadda mar kasta ay u taagan tahay in shacbigeeda iyo mas'uuliyiinteeda garab istaagto taasna waxay ku suurta gashay wada shaqaynta iyo kaalmada iyo walaaltinimada dhow ee shacabka iyo dowladda Qatar aynu saaxiibadan nahay ayay ku suurta gashay oo markaa gurmad u soo diray takhaatiir iyo diyaarad maartay ambulance u soo dirtay si nagiin aan lagu qaaday dhammaan intii dhaawacantay waxaan leeyahay ilaahay noo caafiyo shuhaadadiina ilaahay jannadii ha ka waraabiyo maxamed axmed xasan maxamed yulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho.